muuqaalkan waa deegaanka Buufow oo hoostaga degmada Marka waa deegaan istiraatiiji u ah gobolka Shabeellada Hoose waxayna leedahay wado xiriirisa deegaanka ka tirsan gobolka Shabeellada Hoose iyo Jubbooyinka sidoo kale waa deegaan barwaaqo ah marka loo eego waxyaabaha uu Rabbi ku maneystay saas oo ay tahay dadka ku nool halkan waxa ay dareemayaan baahi wadata dhinacyo kala duwan in bini'aadamku uu wax u baahdo waa wax caadi ah laakiin dadkan waxay u baahan yihiin in la tuso qaabkii ay ugu faa'iideysan lahaayeen waxyaabaha deegaankan gaar ku ah sida dalagga ka soo go'a beeraha iyo deegaanka oo ah meel ku habboon dhaqashada xoolaha haddaba qaar ka mid ah dadkan ayaa ka hadlay waxa ay xilligan ay baahidoodu tahay waxaan codsanaynaa ceel inaan nolol bajiyo biyo la'aan hayso goobgan wada daadooy waa iska hiraa jilaal markii la gaaro biyo aad ugu dhib qabnaa horta tan kale beeraha geed raambo waa ku yaalo dadkii waa iska tabaaraysan waa iska tabariyay wax geed qaada karo ana waxaan codsanaynaa haddii aan heli karno raambo wax naga baneeyo dii la helo nabad waaye wax walba baa taasan u baahanahay amshad oo qof xanuunsan iyo naag dhaleeso iyo xaafadaha joogto hadda baabuur loo kiriyaa markii meelaha la aadiyaa hadda meeshan laga helo dhabaan loo helo waa jecelnahay dil tuuladan waa hirsi waxa reebi ayub aan wajiga ka saara bandi hal cunug 30 jir ama 20 jir soo qabsadaha magac qordhe hadii hesh beesan ku fiiha 30 sano soo bilaw inta ay waqti ku jirto bandi iskool wax barasho la'aan jirta ma fahamno ma haysan daryeelo ma haysan hadii waxaan meelaha marmaray niman daryeelo oo habeen maalin socdaan yani hay'adaha taakuleya bandi nimankii hadda ma aragona barnaamijka Amerika dhamaaday MCO la'aan hay naaga waxa badi markay dalma gaaraan dhiig la'aan u dhintaan qaarkood bandi gaayid ma joogo baabuur ma leeyahay dad hadda la xabta ka baxayna habeenkii la xasaa naag foolsi baabuuran hayno baabuur ma hayno gaar dameer saar asbaa ka dhiig booyay miiska jeene saasa idanka baabaasan ko hal ceela qabl Soomaali oo Shabeelboodka yaa waraabay oo istarniin cad alusniin qodi مفهوم إذا غير عراسية كستاتين نفسهم عشرين إنتاج وين ها سنين منها هاستان منك هاستان لكن ما يكون عيني وأنا ولا بيا وأنا قطع مفهوم وأصل كين وايسين هاي بيلكي بيجي قدوة كين وايسين بل ما أمر واحد قصنا سد هذا ما أنا سؤال شنو أنا واحد نوقف قلت واحد نوقف تصدق إنه هو سوق القرص بيا واحد برشة عارف ماتك Madiina Cali Maxamed waa gudoomiyaha ururka haweenka ee deegaankan wallahi baahi badan jirto ciyaalka yariiriska haweenka uurka leh sida haweenka uurka leh oo kale wax MCA ma lahin hatta farmashiyaal badan ku yaalaan baahida ugu badan hadda waxay tahay daawo la'aan ciyaalka iskool ma dhigtaan dugsi quraan ay dhigtaan ma ahna iskool ma lahayn haweenka xaro oo ku kulmaan oo aan ku wada gaarayaan ma lahin hadba meelaan fariisanaa waxaan rabnaa meel inaan loo dhiso hadaan nahay haweenka oo Buufow waxaan rabnaa MCA waxaan kaloo rabnaa iskuulo waxbarasho wax badan aan u baahanahay si walba ha noqotee deegaankan Buufow Bacaad waa deegaan hoostaga magaalo xeebeedka ee Marka ee gobolka Shabeellada Hoose waxaana dadka ku nool ay u badan yihiin beeraley iyo xoolo dhaqato waxaana cabashadoodu ay ku soo beegmaysaa iyadoo abaaro ba'an ay ka jiraan qaar ka mid ah gobolada dalka